xoghayaha fulinta dowladda hoose ee magaalada Burco iyo guddi hoosaadka gobolka Togdheer ee la dagaalanka xanuunka COVID-19 oo kulan wadajir ah ku yeeshay xafiiska xoghayaha fulinta dowladda hoose ayaa soo bandhigay buug qayb ka noqon doona wacyigelinta iyo la dagaalanka xanuunka coronavirus kaasi oo ay soo saartay dowladda hoose ee Burco. buuggan oo halkudhig looga dhigay magaca ku xardhan tilmaamaha cudurka coronavirus ayaa qayb ka noqon doona dadaalada dowladda hoose iyo guddida heer gobol ee la dagaalanka COVID-19 ugu jiraan la dagaalanka iyo wacyigelinta bulsho ee xanuunkan. ugu horeyn waxaa faahfaahin ka bixiyay buuggan xoghayaha fulinta dowladda hoose Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan. maanta mar labaad horta tacsi ballaaran halkan uga direynaa gudoomiyihii gobolka marxuum xamse maxamed cabdi waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay naxariis buuxda ha siiyo. halkan maanta waxaan ku soo bandhigaynaa buuggan aan gacanta ku hayo oo ka hadlaya wacyigelinta xanuunka ku noqday aafada adduunka ama caalamka oo dhanba. waa xanuun aada u foolxuna. xanuunkan cudurkan la yidhaha COVID-19 buuggan wuxuu ka mid yahay ama uu ka sheekaynayaa tilmaamaha xanuunkan, sida loo kala qaado, sida la isugu gudbiyo iyo waxyaabaha lagaga hortegayo dhanba. waxaanu doonaynaa inaanu kaga qayb qaadanno haddaan nahay maamulka degmada Burco iyo golaha degaankaba. tiradan maanta halkan xafiiska aanu ku qaybinayno waa hordhac. waxaanu soo samaynaynaa insha allahu tacaala waanu ka kordhinaynaa. waxaanu dhammaantayba intaa wada tafaxaydanahay mas-uuliyadda bulshada reer Burco gobolka Togdheer sidii aanu uga wacyigelin lahayn xanuunkan COVID-19 la yiraahdo. marka waxaanu leenahay muwaadin hadalkan soo baxaya ee guddi qaran ka qaylinayso, ee guddi heer gobol ka qaylinayso, ee guddi heer degmo ka qaylinayso, ee aanu had iyo jeer subax kasta wacyigelinta iyo samaacadaha iyo baabuurta suuqyada dhexe ama saxaafadda sida imka lagu hadlino uga sheegayno. muwaadin waxaan codsanaynaa in la weeleeyo oo la qaato oo la fahmo waxaan laga hadlayo. geestooda waxaa iyaguna ka hadlay doorka buuggani ka ciyaari karo dadaalada loogu jiro xakamaynta iyo wacyigelinta bulsho ee coronavirus. xubno ka mid ah guddida coronavirus ee gobolka Togdheer, dhakhaatiirta gobolka iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Burco. waa buug si fiican ka sheekaynaya tilmaamaha iyo astaanta xanuunkan imika adduunka qabsaday ee COVID-19 sida looga hortegi lahaa iyo calaamadihiisa, waxyaalaha wacyigelinta u baahan in bulshada lagala hadlo, meelaha wacyigelinta ku jahaysan tahay. runtii waa buug aad iyo aad warbixin badan ka sheekaynaya. wuxuu ka mid noqonayaa wacyigelintii bulshada sida tooska u gaadhaysay. dadaalkaas iyo juhdiga ay gelisay dowladda hoose waan ku bogaadinaynaa, waan ku amaanaynaa. haddii aanu nahay midyihiina bulshada waanu gaadhsiin doonaa sida ay fariimahaas iyo wacyigelinta baraarujinta ah ee lagaga hortegayo xanuunka COVID-19 ee buuggan ku qoran bulshadu u weeleeyaan, isla markaana ay u dhugtaan una gaadhsiiyaan guud ahaanba cid kasta oo bulshada ka mid ah kuna dhaqan gobolkan Togdheer. waxyaabihii aynu u baahnayn inaynu ku dhaqmi lahayn oo dhan buuggan bay ku qoran yihiin. hadday tahay ka hortagga xanuunkan, horta sidiisaba dawo ma lehe, ka hortag buu leeyahay. ka hortagiisii iyo maxay haytay nadaafadii iyo wax kasta aynu xanuunkan maxay haytay kaga hortagi lahaynba buuggan bay isku koobsaday. xanuunkan hore wuu jiri jiray oo 30 sano ka badan buu jiri jiray oo uu isbedel saddex nooc isku bedel. mid wuxuu ahaa markii ugu horeysay xanuunka la SARS COVID, haddana wuxuu isku bedelay mid East ka dhaca, Middle East ka dhaca, kaasagana waa mid labaad. hadda kan waa mid cusub. kan cusub December buu bilowday 19 waxa loogu bixiyay wataa coronavirus-kan waxa keena virus aan la arkayn, dawo ma laha. wuxuu qaybsan yahay in dadka reer Burco ama dadka Somaliland la baro bal xanuunkan wuxuu yahay iyo in la baro wax sida looga hortegayo. waa la istaqraynaan daawo lahayn
waa la istaqiray inaan tallaal lahayn laakiinse qofku sida uu isaga ilaalinayo ayaa ku kooban buuggaas waa pamphlet yar qofku wuxuu ku akhrin karaa 15 minid ilaa 20 minid buu ku akhrin karaa waa inaynu qaadanno sida wax laynoogu sheegayo oo si aan cudurkaasi wax inoo yeelin oo aanay aafa inoogu noqon sida uu dunida u aafeeyey ayaan leeyahay war hal la qaato talada ay soo jeedinayaan guddida qaranka iyo guddida gobolka Togdheer. ugu dambeyn xogayaha fulinta dowladda hoose Burco ayaa ku wareejiyay nuqul ka mid ah buuggan guddi hoosaadka la dagaalanka coronavirus ee gobolka Togdheer waa fahmi kaysa xirsi Bulsha TV Burco.